dad baa u dhintay macnaheedu inaan xaweyno hadlisi wala waa ma ka sheekeynaysa يعني وحين صوم مريبا إنه ممكن ما بحسسنا بحقول ده بيسيتيو محمد سالم إذا عاد سكشيجيو وحلو قامنا يا دو عيارة في جوباك جوالات هذا ممكن ودك ما كم مغنين تيبا إنه ما كود ده بيسور با أسلم دول كذيبا نبضة أنت شو مركز دم بيجي كوجرت واي أو هرجس أي نبض قطع ما هرجس الفاسي أو قدي جويسين ما برع الفاسي أو قدي جويدين ما رصاص سكوه هركن ويدين is that what you need fucking Somali no unacceptable SNM uma aysan dhimanaynin in dhulka uu dhiig ku daato ee waxay u dhimanaysaa inuu dhiig istaago secondly farmaajo waxaan aragnay waxbaan raali gelinayaa leh misana sanka intuu taaga saas isla hole jabhadiina dambiyay galeen ma aragtay bal ha soo cafis doontaan if I ask you one simple question just one simple question su'aal yar oo fudud jabhadihii SNM ما waxay ku dagaal galeen farmaajo dawlad madaxweyne qabiil isku bedelay oo iyaga diyaarado shisheeye u soo kireystay mise iyaga intay hub qaateen muqdisho xabad ka riday farmaajo wixiisu maraali gelin bay ahayd mise digashay ahayd aanu ahaantayda digashay ahayd dulmi aan meel loo soo dayin iyo digashay ahayd haba haataa halkaas idig Muuse Biixi Adaro Muuse Bixiyo. Let me tell you one simple point. Let me show you. Adar farmaajo wuxuu dagaal kula jira cid walba oo afweyne iska qabatay dad cunnimadiisi. Farmaajo wuxuu la dagaalamayaa cid walba oo afweyne oo hana cunin tiriyo qori qaadatay. Cadaynta koowaad ee ku hayo. Muuse Bixiyo aabahay waa taqaanaa. waa ninkii gudoomiyaha ka ahaa SDM waa ninkii wadada xudur markuu maxamed siyaad bari ka buuxiyay uu yiri ma aragtay maxay aheeday isheeg miinooyinka raxweena ku baaba'day aabay ninkii wadada isku tijaabinayo ahaa ee miinooyinka ka saaray 2019 kana la dilay dhamaadkeedii sabab kale farmaajo aabay umuuna dilin just SDM buu ahaa buu u dilay Muuse ninkan maanta miis kala fariisatay heshiis baa la galay leedahay soo ma ogid haduu ku helay asna inuu ku dili lahaa garay alla leedahay soddon sano ka bacdi ninka aarsiga maskaxdiisu ay siisay ee la dagaalamay aabahay ee dilay aabahay oo waayeela oo meel iska fadhiyo aboo dad ma la qaban karo soo qabitaanka dhan wuu joojiyay sorry aabahay oo 80 jir SDM aan markuu u dilay adiga inuu ku daynayo ma kula tahay war farmaajo haday tiisa tahay dhigii SNM-ta iyo dhulkii lagu xoreeyay dhigii SNM wallahi oo billahi oo talay sidoo anagana yeelo idinkan idin yeeli lahaa intuu amxaara idin soo diro taangi la idin la dhaco bagagagaga bartanka suuqa ayaa siilaayo adigana lagu afduubila sida aabahay oo kale loo dili lahaa odayaasha mujaahidiinta ahaa waa hadii farmaajo taladiisa ay tahay adaro Muuse gareen ha noqonin ma istaahishid magacaas Muuse gareen ma istaahishid Muuse Biixi Cabdi ayaad ku wanaagsan tahay ku astaaman SNM ku astaaman Somaliland ku astaaman reer Sheekh Isxaaq laakiin Muuse gareen ha noqonin ha burburinin cadawna ha u ogolaanin inuu Hargeysa soo dhixistaa adeero shalay toleed wixii ubadkiina diyaaradaha la dhacay afweynu ahaa ninkii la dhacay farmaajina afweyna hilbaha dadka ku soo koriyay farmaajo hilbihi waxa lagu soo koriyay Soomaalida marka nin ku dagaalamaya hebel baa ma aragtay maxamed siyaad bar la dagaalamay waa la dagaalamaya hebel baa ma aragtay maxamed siyaad bar maalin ay hadal isdheen waa la dagaalamaya jabhad baa gado ku aruursanaya raxweenan dukum daakum ka dhigaya adeero Muuse xageed u socotaa nin shabaab quwadiisi gacan ku haysta Ethiopia gacanta kala ku haysta sideed albaabada ugu furataa adeero Muuse Bixiyo Ethiopia dhinac libaaxiyaan laga tusin Ethiopia way tagtay Ethiopia wax la ma jirto amxaari Tigray caaw isuma gudbaan oramadii amxaarada ka daran dab iyo benziin bay isku tahay ayadii baa kala tagaysa shan cisha u hartay adeero Muuse waxa ku dambayn doona maalinka farmaajo cagaa u soo dhigto Hargeysa tan ku dambayn doonta aan Soomaali baan qowmiyada raxween baan
jareer weynaa dad iigu xigoon ilma adeerna hawiyahaasaanu darisna runtaan kuu sheegay adigana waad nala dhalatay soomaalinimadii diirka madoobaan ku simannahay iyo ciidaas adeero dad cuqdad qaba ma nihin soomaaliduna waa dad wax cafida laakiin waxa la cafinaayay reer afweyne hadday yihiin cafiskaas waa lagu haligmayaa annagaa ku haliganay 1991 wixii ka dambeeyay waxaa la bilaabay in mareexanka dib loo soo celiyo oo la dhaho soo celiya hal iska soo degaan ninka shalay tolsaas ku qalay mindida ku watay 3 jirka la fuulay dadka boqol loo duugay direeska militariga Soomaali lagu leeynaay raxaween boqol loo duugay meelaha qaar waxyaabihii ka dhacay Muusow waxa ka dhacday xabsiga Baydhabo SDM markay soo gashay rag buu wadnaha istaagay oo dhintay caruurta daba jira oo lugahooda hoostooda dhiig ka da'aya oo dhidhinto madaxa ka bashaaqan oo 2,000 oo qof dad gaaraya meeshaas loogu tagay rag xiniyaa laga gooyay balaayo dhan Maxamed Siyaad Barre iyo mareexankii fidnadii uu watay cafiskii aanu cafinay ayagoo saas noo galay aan gada ku soo celinay ilaa Baydhabo keenay adeer maxaanu ka faa'iidnay Muusow iga dhageyso handaraab bay ku yiraahdeen handaraabka hadda qaado wallahi waajib buu kugu yahay maanta waa handaraabka waajib kugu yahay Muuse bixiyo waa hadda Somaliland uma hayso hadday tahay Somaliland u soo dagaalantay wallahi billahi saako handaraabka waajib kugu yahay xuduudaha xidiga ku dhaha tan ku dambayn doontaan ku sheegay iga dhageyso adeer Muuse